السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة الصوماليات دافها الدنيا نجد داونية لما انتم بسود وهذا بان ugu faraxsanahay inay halkan nala joogto nimca maxamed khaliif abaayo Soomaaliyeed oo aad taqaanaan marar badanna aad aragteen ma sha Allah ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeeda iyo niyaddeeda iyo qulubteedaba rabbi subxaanahu wa tacaala ha u dejiyo nimco maantay ayay nala hadlaysaa insha Allah bismillahi kariim maantay waa maalin ciid ah maalin sharafeed waa maalin fadli badan tobankii maalmood ee khayrka badnaa ayaan soo marnay marka hore nimco waa ku soo dhaweynayaa waa dhawahay ilaahay khayr ha ku siiyo walaalkay Soomaaliyeed oo aan iska baranay miidiyaha iyo wanaagga iyo khayrka aan ku tuhmaayo ilaahay dartii isoo xiriyo isoo wacay maantana igu dhiirigeliyay inaan bulshada Soomaaliyeed oo shariif iyo sheekh leh ii duceysay garb istaagtay in aan la hadlo oo maantay u jeediyo khudbad taabanaysa qalbiyadooda waa ku mahadsantahay bowsa ii soo dhaweysay aad baad u mahadsan tahay الله أكبر ولله الحمد الله ما شاء الله مالمي خير كان كجرنا نمعو شرفت بدنا كرامة لها ومالنتي معركتي دعاء هذا أمضى دن أي كود عينيسي شيخنا الله شرفه شيخ أحمد نور حفظه الله ورعاه ودعاء أسماء كنتي كؤادية بحلقي أهل خيرك يوناجا aad iyo aad baan ummadda kugu ducaynaysaa aad iyo aad bayna mar walba qalbiyadooda iyo qulubtooduba ay kula jiraan soo dhawow dadkaaga way ku maqlayaan way ku jeedaan maanta waa ciida kale farxad badanna waad soo martay maantana dabcan waa adigan quruxda badan oo waad ciidaysaa bal faraqaha u dhaxeeya iyo ciidihii hore iyo ciidan insha Allah haddaad nala wadaagto soo dhawow nimco qalbigeena iyo qulubteenaba adigay ku dhigaysaa waa dhawahay insha Allah ilaahay khayran siiyo wax kasta kugu imaadana waa lagu samraa sida hadda nabiyadii hore ilaahay soo diray risaalada loo sii loo dhibaateeyay ama dhibaato badan u mareen bil aadan baana qalbigeena uu iska jilicsan wax kasta kugu imaadana waxa la dhahaa alxamdulillah dib iyo dheefa kuwa loo barwaaqeeyay waxaa looga sugaa inay dhahaan alxamdulillah kuwa la dhibaateeyay oo ka mid ahay awlaadeedii qalbiga ubaxay ka dhaxbaxay leega qaatay waxaan dhihi karaa alxamdulillah farqi weyn baa u dhaxeeyo iidii hore iyo iidan labadii iidood iidii soonka iyo iidanba kaligay baa ciidaayo alxamdulillah ilaahay baa ii gartay ilaahay wuxuu fiirinayaa samirkayga iyo sidaan u dhaqmo sida ilaahay ugu xamdiyo markasta ilaahay iga dhiga mid dhahdo alxamdulillah wax kasta igu imaado idii hore oo kale hadaan soo koobo waxaan iidi jiray ilmahayga iyo aniga wada iidi jirnay barwaaqan ku jira alxamdulillah iidaana waxaa iidaya keligay waxaa la fiirinayaa samirkayga kuwa ilmahooda la iidaayo iyo anoo keligay iidaayo waxaa la fiirinayaa samirka kuwa ilmahooda la iidaayo waxaa ilaahay ka sugan inay dhahaan alxamdulillah أنا ما أنت كلجي إيدا أنا أبرن دوري 8 سنة كلجي إيدا أو كلجي ما أنت سنة كان إيداي وحالي قصين هذا الحمد لله وأدريم كذا قلبي قاعد وبحادي كده بحاي إلهي كوجد يا طبعا كذا قاعد فوق ويعني دد الدين يمبدأ يدقن أكوك للدونتين أي لولنا ليهين وأدريم كذا عندي بعد ترتو بس وين عندها الحمد لله إلهي بروح البفوض دايو إلهي waxaan ka baryayaa yani dhibaatadan aan maraayo mid barwaaqo iyo farxad ku dambayso awlaadaasna ay noqoto kuwa aabahoodu duceeyo oo xuso ilaahay inuu ka dhigo intii ii soo duceysay intii faatixada ii soo madhay inta hadda idaawaneysaba way mahadsan yihiin oo walaalkay soo xiray uu ka mid yahay adiga mahadsan adiga sharaf mudan adiga karaamo mudan adiga mudan in lagu taageero adiga mudan in lagu duceeyo إلهي سبحانه وتعالى قلبك هكو داويو
niyadaada ha kuu daaweeyo muraadkaaga rabbi ha kuu sahlo alla subxaanahu watacaala ha ku siiyo awlaadaadii ha kuu soo celiyo alla subxaanahu watacaala maaragtay garabkaaga ha noqdo insha allahu biidnillaahi kariim sida muslimiintu ay kugu ducaynayso sida ay kuu garab taagan yihiinna insha allah waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilmahaas agoonta ah oo masaakiinta ah in ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay kuu soo sahlo oo uu kuu fududeeyo rabbi subxaanahu watacaala ha kuu fududeeyo walaalayaal aan u ducayno abbaayo ilaahay subxaanahu watacaala inuu maaragtay u fududeeyo oo u sahlo awlaaddeeda runtii waxay ka fakaraysaa aabbahood oo dhintay inay u duceeyaan marka waa wax wanaagsan waa niyad wanaagsan waa qalbi wanaagsan maaragtay maasha allah nimco allaha ku xafido allaha ku barakeeyo insha allah waad helaysaa ilmahaaga waad helaysaa maxaad maaragtay kaloo jeceshahay inaad sheegto waxaan jeclahay yani dhibaatada igu dhacday in ummadda soomaaliyeed iiga soo duceeyaan ilaahay gaaladaas dadka aan la noolnahay oo kale mabda'a duwan ilaahay inuu shartooda iga qabto khayrkooda alla isoo xijiyo awlaaddeeda ilaahay ka dhigo kuwa baariya inay iigu soo duceeyaan oy faatixada ii soo maraan qofkii lagu jiray ilaahay baa og uu ka mid ah shiiqayga weyn oo ilaahay khayr ha siiya shiiq axmed nuur suu iigu soo duceeyey ilaahay isna ha karaameeyo intay daawanaysa intay maqli doonto waxaan ka codsanayaa inay ii soo duceeyaan oy faatixada ii soo maraan ma dhahaayo hanti i siiya ma dhahaayo kan i siiya yacni faatixada igu kaba ilaahay ii barya intaasaan ka codsan lahaa ummadda soomaaliyeed ay maqlayso maasha allah ilaahay idinkiis war farxad leh ayaa noo soo yeeri doona insha allah biidnillaahi kariim rabbi subxaanahu watacaala allah ha kuu fududeeyo allah subxaanahu watacaala hina maaragtay si deg deg ah awlaadaada ha kuugu soo sahlo waad mahadsan tahay waa lagu duceynayaa insha allahu ilaahay subxaanahu watacaala qalbigaaga ha kuu dejiyo annagana hanaga farxiyo oo maaragtay ducada aan rabbi weydiisanayno ah in ilaahay awlaadaada kuu soo sahlo annagana ilaahay subxaanahu watacaala ha aqbalo ducadeedna adigana qalbigaaga allah kuu dejiyo xaaladdu hadda waa okay soobaan wax walba waa wada dhagdhag wallaahi dhagdhag weeyaan waxyaabo qaarkoodna dhagdhag ma ahan sida hadda ciyaalkii waaweynaayo kale saan kuula wadaagoo kale aan hoosta kuugu soo diray way calaacalayaan way ooynayaan cidna hadalkooda ma dhegaysanayso insha allah ilaahay waxa waaye khayrka allaha soo dedejiyo shartu way soo oradaa balse khayrku waa soo daahaa marka mid samirta allah iga dhigo mar labaad sida ilaahay shalay ii mideeyo ilaahay igu deeqay mar labaad in ilaahay ubixii qalbigayga ka dhex baxay mar labaad ilaahayna mideeyo sida waxay dareemi kara qofka hooyo noqday ama ayeeyo noqday ama noqday adi waarid u noqday waa dareemaya maanta qalbigayga wuxuu dareemayo ilaahay ha iga dhiga midii samirto oo ku samirta dhibaatooyinkan ay marayso wixii agtayda qaaliga ku ahaayo dhanaan waaye waxaan waaye ninkaygii waxaan waaye awlaadeyda qalbigayga ka dhex baxaysa marka waxaas dhan waxa waaye muuminkaa la dhibaa ilaahay mid ku samirto oo ilaahay mar walba xasuusata allah ha iga dhigo آمين آمين إن شاء الله آمين 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 إن شاء الله شيقنا مرة سوحرينا هذا وانت وعيد ولا مشغول سنة هي معلوم وين أيا إن شاء الله وأدي شيقنا سوى الجلسان أو شيقنا كود عندنا جعل هذا أنا كمان وعاجز مرة بوكود عيا سيدا أركتي هذا ما أركتي الله سبحانه وتعالى الله يا الله إله سبحانه وتعالى ما أركتي ha kuu fududeeyo ilmahaagana rabbi dib ha kugu soo celiyo walaal aan u duceyno abaayo aan u duceyno insha allah biidnillaahi kariim ilaahay khayrka ha ku waafajiyo ilaahay ha kaa farxiyo ayaan ku leeyahay awoodeennu waa inaan kugu duceyno insha allah ilaahay subxaanahu watacaala ha kaa farxiyo hadda systemka waad baratay insha allah waa xiriireynaa wax walba insha allah mideeda ummadda soomaaliyeed waa u digayaa waxaan rabaa inaan fariin halkan ka gudbiyo qofkii aabba ah iyo qofkii hooyo ahba in uu dhiifoonaado uu digtoonaado uusa ilaawin hadduu hooyo yahay iyo hadduu aabba yahayba inuu alla baryo ilaahay baryadiisa uusa ka quusanin yacni waxa dhibta adiga kugu dhacday
qofka walaalkaa ku dhaca ana berri bay ku imaan doontaa inay dhiifoonaadaan inay ilmahooda u duceeyaan inaysan habaarin in ay qaraabada ehelka oo kala xiriiriyaan ilaahay baryaan awlaad waxay u baahan tahay alla bari in alla baryo ay taxaan maalkaada iyo awlaadaada waa lagu fidnoobaa ilaahay kuwii ku fidnooba alla nagama dhigo ayagana ilaahay baarha uga dhigo hooyooyinka iyo aabayaasha soomaaliyeed oo qurbaha ku nool in ay dhiifoonaadaan aysan dhihin heeblaayo waxaasaa ku dhacay saana ilmaheeda eersatay waxba ma eersan wax kaste waa iska calaf iyo wixii alla kuu qoray inay dhiifoonaadaan qurbahan imaanin lagu soo dhaweeyey waddankaana lagu soo dhaweeyey inay indho dheer yeeshaan ilaahayna ilmahooda u baryaan garabka iyo gacantada isqabsadaan tafaraaruqa iyo kala tagga iska daayaan ilaahay u laabtaan isku xirnaadaan markii labadan qof awlaadda ilaahay ubax buu alla siiyey ubaxaan alla ku siiyey wuxuu u baahan yahay inaad waraabisid oo jaftid oo aad nadiifisid waxa waqti ama tacab la geliyaana waxaa la helaa lagu intifaaca in biri ka maalin hadday dhintaan waalidka qurbaha joogo ilmo u soo duceeya inay noqdaan ilaahay u baryaan waa inay ka shaqeeyaan waayo geedka haddaa markuu yar yahay aan la waraabinin oo la hagaajinin hadhowti ma toosnaanayo markuu yar yahay lasoo toosiyaa haddaada yaraanta geedka aada ku toosinin hadhowti u weynaada waa toosinaya ma karaysa uu adkaada marakan marka waxaan u sheegaya ku baraarujin lahaa inay gacmaha isqabsadaan inay tafraaruqa iska daayaan in ay ilmahooda u turaan baan ka codsan lahaa taas waa xaggayga ra'yi ahaan waxaan ka hadlay ilaahay khayrkana waafajiyo meel walba aan joogno intii ii soo duceysay iyo intii faatixada ii soo madhay ku mahadsan yihiin waxaan dhihi lahaa faatixadiina halkii ka wada iyo allabarigiinii waa inii ogsoonahay waxyaabo badan ilaahay hadda waa soo iftiimiyey ducadiinii wax badanna waa la sugayaa halkiina ducadii kasii wada ilaahay khayrkaana sugansa maasha allah ilaahay subxaana watacaala ha kuu fududeeyo ilaahay subxaana watacaala hina maaragtay wanaagga ha ku waafajiyo maaragtay shacbigaaga iyo ummadaadu way ku maqlayaan way ku dhegeysanayaan way kuu dhega nugul yihiin maaragtay taladaasiisana way qaadanayaan waxaad kula talinaysaa hooyada aabbihii ilmaha ka dhalana joogo ayadiina joogto maraykanka joogta iska ladan dhib aan qabin haddana waalidkii iyo hooyadii iyo aabbihii ishaystaan oo murmayaan oo nimcada lagu heshiin layahay waalidka iskhilaafsan maxaad tala siinaysaa nimcada waxaan siinayaa inay tafraaruqa iska daayaan ilmahooda u tanaasulaan haddii aa aragti reer meel dhisan oo kasoo jeeda qof unbaa dushiisa lagu socdaa dabeecaddiisa reerka lagu wadaa inay isku samraan adduunyadan waa maalmo yar waqti yar waaye waxaan ku nahay qariib maalin maalmaha ka mida baan ka tegi doonaa kuwii camal wanaagsan iyo khayr uga taga allaha naga dhigo inay ilmahooda u tanaasulaan inay ubaxooda ilaahay siiyo u tanaasulaan tafraaruqa iyo dagaalka iyo dhibaatada iska daayaan iyo inay isqabqabsadaan nimcadan ay ku jiraanna ay ka faa'iidaystaan baan kula talin lahaa ilmahooda u tanaasulaan ilaahay cabsidiisa istusaan mar walba ilaahay ka cabsadaan wax kasta ilaahay uga cabsa haddaa ilaahay cabsidiisa mar walba xasuusan tahay waxba kaama xumaanayaan aakhiriya adduunba waa lagu liibaanaa cabsida ilaahay mar walba inay cabsida ilaahay xasuusnaadaan ilmahooda u tanaasulaan ku boorigelin lahaa ilmahooda bannaanka isa dhigin maasha allah allah ku xafido ilmahaagana allah kuu soo fududeeyo insha allah biidnillahi kariim ilaahay subxaana watacaala ha kaa farxiyo ilaahay subxaanahu watacaala ha kaa farxiyo rabbi subxaana watacaala ilaahow rabbiyo awlaadeeda gabadhaas usoo celi rabbiyo ilaahay ha kuu soo celiyo awlaadaada ilaahay subxaana watacaala ha kuu soo celiyo walaalayaal usoo duceeya gabadha walaashiina ducadiinay rabtaa maanta waxay tiri waxaan idinka raba waa ducadiina iyo garab istaagiina insha allah biidnillahi kariim marka aad baad u mahadsan tahay nimco aad baan kaaga mahad celinayaa fursaddan waad mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaad jeceshahay inaad weli nala hadasho waa ku dhegaysanaynaa diyaarna waa kuu nahay inaan ku dhegaysano shukran abo waa mahadsan tahay khayr allah ka siiyo wixii su-aala ay weydiin ka dhigo ay weydiin ka dhaa misaan hadda su-aal ma qabo waxaan kaliya qabaa in la ii soo duceeyo faatixada la ii soo maro ilaahay gaaladan sharkooda alla iga qabto khayrkooda alla isoo xijiyo wanaagga alla isulansiiyo aniga ilmahayga mar labaad madowno qalbiyadeena alla isku burcad iyo ilaahay burcad beerkeena isku mariyo baan codsanaya ummadda soomaaliyeed adiga isoo xirtana waa mahadsan tahay
waqtigii jaaniska ay siisay fursadda ay siisay ummadda kusoo hor istaagay aad baa u mahadsantahay abow aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajeynayaa adigoo faraxsan oo ilmahaagu ay ku hareer joogaan oo sawirada quruxda badan leh aad maaragtay waxaan rajeynayaa in maaragtay aad nala wadaagi doonto insha allah ilaahayna uu maaragtay kaa farxin doono biidni illaahi baari walaalayaal aan u duceyno aan garab istaagno abaayo aan u hiilino insha allah biidni illaahi kariim taladeedana aan qaadano waalidku waa inuu maaragtay insha allah mid kalena waa ku darsan lahaa haye mid kalena waa ku darsan lahaa inta ila midka ah oo qurbaha joogto oo saasoo kale ilmahooda uga maqan yihiin sida gabadha walaashay faadmo buraanbur wallaahi aad baa ula murugooday aad baan u ooyey maalmo badana ilaahay u baryo dhibta aniga ay haysato intaan ilaaway la qiirooday maalin dhexe barnaamij in la soo gashay dhahday ilmahayga anaa mar labaad dhabta qabsanaayo markay dhahdo waan la farxay waxa aan qabo waa ilaaway waxaana ku ilaaway ilmo way dhib badan tahay aad bay u xanuun badan tahay kuwii kale inta laga qaatay haddana ilmihii caloosheeda ku jira in loo dul fadhiyey wallaahi aad bay arrintaa ila dhibaato igu noqotay balse markay dhacday anaa mar labaad dhabteeda saaranaya waa ku farxay waxaan kala boorinayaa dadka ila midka saasoo kale awlaadooda uga maqan tahay shalay ilaahay baa siiyey allihii siiyaana maanta u soo celinaya inay samarka badiyaan kelmadda ahna aysa ilaawin ayna ku celceliyaan laa xawla laa quwata illaa billah laa xawla laa quwata illaa billah dikriga ilaahay aysa ilaawin inay ilaahay xasuusnaadaan mar walba ay ducaystaan ducada ku celceliyaan laa xawla laa quwata illaa billah inta ila midka oo saasoo kale awlaadooda u maqan tahay inta haysato oo guryahooda ugu jiraan waxaan ku baraarujinayaa inaysa ilmaha ka ilaawin ducada iyo allabariga iyo ilaahay miciisa inay mar walba magaca ilaahay hadal hayaan inaysa ilaawin baa ku boorigelinaya kuwa ay ka maqan yihiin ay samraan ilaahay baryaan ilaahay wax kasta wuu awoodaa waa qafuur raxiim maasha allah nimco maasha allah aad baad u mahadsan tahay aad baan maaragtay kugu duceynaynaa insha allah biidni illaahi kariim ilaahay subxaanahu watacaala khayrka ha ku waafajiyo ilaahay ha kaa farxiyo ilaahay awlaadaada ha kuu soo celiyo insha allahu culummadan insha allahu hadda systemkan tijaabinaynay iyo sidaad usoo geli karto hadda waxaan filayaa waad taqaanaa waad baratay marka insha allah waxaan sameynayaa culummada ayaan marka ku kulminaynaa oo culummadu si ay kugu duceyso insha allah biidni illaahi kariim maasha allah aad baan aad iyo aad insha allah boowe waxaan ilaahay ka baryaynaa ciideeda kale inaan barwaaqo iyo bashbash ku gaarno iyo caafimaad inta haysanana ilaahay noo siyaadiyo ciideeda kale inaan ilaahay barwaaqo iyo farxad isku mar labaad ku kulanno aniga awlaadeyda haysto inaan mar labaad ilaahay nabad bigu gaarsiiyo ciideeda ilaahay ka baryaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana ilaahay cimri dheer iyo caafimaad allaha siiyo aamiin insha allah aamiin 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 insha allah haya abo waa salaamaya ummadda soomaaliyeed iyo adiga waa in salaamaya salaamullah salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu way mahadsan yihiin inta ii duceysay inta ii garab istaagtaba mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad way mahadsan yihiin maasha allah allah ku xafido aad baad u mahadsan tahay walaalayaal aan u duceyno aan garab istaagna abaayo insha allah biidni illaahi kariim ilaahi subxaanahu watacaala ha xafido rabbi subxaanahu watacaala awlaaddeedana dib ha ugu soo celiyo kuwa soomaaliyeed ee gacanta kale ku jirana ilaahay maaragtay ha ku soo celiyey gacanta waalidkood kuwa xabsiyada ku jirana ilaahay subxaanahu watacaala xabsiyada ha ka soo daayo kuwa maaragtay daroogada iyo balwadaha ku jirana ilaahay subxaanahu watacaala ha ka qabto allah waxaan kuu weydiinaynaa insha allah inaad adigoo faraxsan farxad iyo khayr nala wadaagto aad baad u mahadsan tahay nimco nimco haya abo adaa mudan shukran ilaahay khayr awlaada iyo familka ilaahay ha ku barakeeyo akhri adduunba shiikhana allaha barakeeyo insha allah in salaamaya waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay walaal mar walba ducadaada ayadoo ku ogeyn ayadoo insha allah mar walba aan u duceyno gurigaaga adoo jooga u duceyn insha allah in ilaahay awlaadeeda uu u soo saaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay nimco insha allah haya abo haya